aad baad u mahadsan tahay xuseen cabdulle sida aad sheegtay baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay waxa aad u qabsaday ka falcelinta ay ka falcelinayaan inta badan bulshada Soomaaliyeed qoraal kooban oo lagu daawacay barta Facebook uu ku leeyahay alfanaan Idil Cabdullaahi Nuune Idil Yare oo ah fanaan taageero badan ku dhexleh bulshada Soomaaliyeed kuna nool magaalada Nairobi qoraallo isdaba joog ah ayaa saacadii ugu dambeeyay la soo dhigayay laakiin qoraalkii saameynta gaarka ah yeeshay waxa uu ahaa qoraal kooban oo uu ku leeyahay Allah ayaan idinkaga tagay ilmahayga waxaana qoraalkaas uu wataa sawir Idil iyo 3 canug oo uu dhalay oo mid gabar ay tahay canugna uu yar yahay mid kalena uu yara qaangaar yahay marka dadka qaar ayaa durbadiiba u qaatay in Idil maadaama bariyahanba uu xanuunsanayay xaaladiisa ay ka sii dartay oo ay tahay fariin dardaarna Idil waan isku dayay inaan la xiriiro telefonkiisa waa u dhacayaa oo lagama jawaabayo sidoo kale xog hadda aan helay waxay muujinaysaa Xuseenow in Idil saakay uu dhakhtar aaday oo caruurtiisa aysan ka warqabin xaaladiisa telefonadiisana aysan qaarna bixinin qaarna aan laga jawaabaynin dad isu tagay oo fanaaniin ah oo wariyaal leh oo siyaasiyiin leh ayaa imika waxay doonayaan inay ku dhaqaaqaan cisbitaaladii uu inta badan tagi jiray oo xaaladiisa caafimaad uu kala socon jiray marka xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa in Idil markaasi hadda baadi goob lagu sameynayo isla markaana raqay ruuxalka uu ku dambeeyo la doonayo in la ogaado marka dhinaca kale Xuseenow bilii ugu dambeeyay waa uu xanuunsanayay fanaanka wuxuu qabaa xanuunka sokorta oo uu sheegay sidoo kale waxa jirta buro madaxa uga taala oo xanuun daran ku haysay dabcan magaalada Nairobi cimiladeeda ma aha mid la saadaalin karo marna qabow ayaa iska imaada marna kuleel ayaa yimaada labadana wuxuu sheegay jiray fanaanka in ay dhibayso oo hadii qabow uu soo dhacan dhibaato ay ku tahay burada hadii kuleel uu yimaadan dhibaato ay ku tahay way hatta caruurtiisa ama ehelkiisa iyo dadkii ka agdaba ma waxaad leedahay ma jiro qof saakay u raacay dhakhtarka oo xaaladiisa ka soo warami kara ama meel ku og ilaa iyo waxaan isku dayay Xuseenow inaan xog dheeraad ah ka helo rag abwaaniina oo si weyn ula shaqeynayay Idil Cabdullaahi Nuune Idil Yare iyo fanaaniin wariyaal intooda badan maanan haleelin laakiin mid kamid ah abwaanada Soomaaliyeed abwaan Saciid Nuur Gure oo aan qadka telefoonka ku helay wuxuu ii sheegay in sida dadka ay u hadal hayaan isaguna xogta uu helayo oo ilaa iminka xog rasmi ah uusan ka haynin Idil iyo xaaladiisa sidaas la mid ah uu wacay telefonkiisa aan laga jawaabin caruurtiisana waa dareemi kartaa caruur aabahooda saakay uu ka tagay oo wax xog aan ka haynin baraha bulshada uu kala socdo xaaladda ducadii iyo waliba wax kasto ku saabsan wanaaga Idil oo baraha bulshada qabsaday murugo gaar ah ay caruurta dareemayaan laakiin ma jirto qof hadda la og yahay oo Idil dhakhtarka u raacay oo maanta la xiriiri karo sidee ayaa looga dareemay Nairobi iyo Kenya oo fanaanku taageero badan oo ku lahaa ku nool yahay qoraalkan oo bartiisa Facebook soo dhigay oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed aad uga naxeen markaad fiiriso Xuseeno baraha bulshada dhammaan Kenya oo kaliya ma Soomaali meel kasto ay joogaan ha noqdo siyaasi ha noqdo wariye ganacsade dhammaan dhalinta qaybooda kala duwan way ka falcelinayaan Idil way u duceynayaan Idil waa fanaan saameyn gaar ah leh marka loo eego xagga fanaaniinta casriga ah waa fanaan inta badan looga bartay dib u soo nooleynta heesii hore oo dadka ama dhalinta intooda badan aysan fahansanin marka intooda badan dadku ay u duceeyaan oo hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada waxay tahay hadda Idil iyo xaaladiisa maxaa ka soo kordhay in la yiraahdo fanaaniin ayaa jira dalka dibadiisa ku sugan oo Kenya ka maqan oo qaar Mareykan ay joogaan oo soo qoraya bal cidii Kenya joogta oo xog rasmi ah ka siin karta xaaladda Idil Cabdullaahi Nuune Idil Yare inay u baahan yihiin marka qaybaha kala duwan ee bulshada bay u hadal hayaan wayna u duceynayaan fanaanka in xaaladiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sugo oo caafimaad ugu deeqo waa maasantahay masrax dadka waxyaabaha ay isweydiinayaan waxa kamid ah inay muhiim tahay in la ogaado Idil koo xaaladiisa caafimaad iyo marka labaad dhaqaale ahaan noloshiisa ay tahay si ugu yaraan hadii ay jiraan duruufo dhaqaale oo daryeelka caafimaadkiisa hortaagan loo caawiyo ma ka warqabtaa ama wax war ama laga hayaa noloshiisa dhaqaale iyo taageero waxa uu heli karo Xuseeno markaad fiiriso Idil
waxaa jira fanaaniin badanaa jira markaad fiiriso wariyaasha, fanaaniinta, siyaasiyiinta, ganacsatada, dad badan oo dabcan waxaa jira noloshooda heerka ay tahay ka been sheega oo yiraahda nolosheeda waa sidan iyo waa sidan. laakiin iidle marka xaqiiqda laga hadlo baraha bulshadana inta badan uu isticmaala maaha nin noloshiisa ka been sheega oo wuxuu ku leeyahay xalay intaasaan soo shaqaystay, intaasaan ciyaalka ku bixiyey, intaas bishii iguma filna. dabcan qofka Nairobi ku nool noloshiisa markaad usoo daadegto xitaa $1,000 haddii bishii uu qaato isagoo keligii ah oo caruur aan u joogin oo xaas aan u joogin kuma filna. marka Iidle Cabdullaahi Nuune Iidle Yarana dabcan waa aabba Soomaaliyeed oo aad dareemi karto caruur ku haysta magaalada Nairobi. xaaladiisa caafimaadna aan filayo in xitaa mar uu tagay Dubai oo xaaladaas uu baldoonayay in wax laga qabto. laakiin xaaladiisa sida hadda inta badan dadka ay hadal hayaan waxay u baahan tahay in loo qaado dhinaca iyo dalka India. inkastoo aan si rasmi u ogeyn in fanaanka uu caawinaad dadka dalbaday oo waayey ama in dad ay usoo bandhigeen uu diiday, haddana Nairobi qofka ku nool mar walbaaba in la garab istaago waa laga maarmaa.